gudoomiyaha mihnadayaasha caafimaadka Soomaaliland Luur Tirda ayaa sheegtay in ay saari kari laayihiin isla markaana ay awood u laayihiin dhakhaatiirta ajaanibka ah ee dalka ku sugan. Waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta ajaanibka ah ay dad dabada ku hayaan. geesta kale waxa ay sheegtay 7 qof oo muwaadiniin ah oo xaalad caafimaad oo ay kala kulmeen cisbitaalada dalka ay la soo xiriireen gudida mihnadayaasha caafimaadka isla markaana 4 kamida dadka ay xaliyeen arrintooda balse 3 kale ay ilaa hadda gacanta ku hayaan. gudoomiyuhu waxa ay sidan ka sheegtay maraysaa ka hor timid gudida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland waxaana halkaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudidaasi Mudane Dayib Xasan Axmed. mudane gudoomiye gudida iyo gudida mihnadayaasha caafimaadka halkan waxa fadhiyo idin yeeray gudida joogtada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si shaqeysa inta uu goluhu maqan yahay siina diyaarisa wixii ay ku shaqeyn lahaayeen goluhu 3 bilood soo socda insha Allah waxay idinku yeereen in ay warbixin ka siisaan shaqadii qaranka ay u hayseen ee leedin igmaday saa wax uga qabateen iyo saa wax uga qaban doontaan say iyaguna waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan warbixintaas siisaan oo ay u gudbiyaan goloweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland say iyaguna markaa hawlihii qaranka ay u hayeen meeshii lahayd ay u gaarsiin lahaayeen ku soo dhow dhakhaatiirta ajaanibka ah cidna kaba qarsoona in halka u shaqo yimaadeen annagana waxa weeyaan maxaa la oran jiray qodax lagu mudan weeyaan laba arrimood marka jira dhakhaatiirta ajaanibiga ah annagu markii dhakhaatiirta ajaanibiga aan soo maraan waanu baadhnaa qaar badan waanu celinaa laakiin runta la isu sheegayaa dhakhtar kasto ajaanib oo Soomaaliland jooga qof reer Soomaaliland waa soo xambaartay waxa weeyaan marka qaarkood baanu saari kari laanahay qaarkood baanu ashkateyn kari laanahay annagu inta tamartayada ah idinkuna waa ka warhaysaan annaguna waan ka warhaynaa ilaa systemka la bedelo oo ay sida uu Faysal sheegay hay'adaha dawladdu gacanta intay isqabsadaan yiraahdaan meel looga soo wada jeesto ajaanibiga iska celin karno qoobnay waxyaalihii noo qabsoomay ilaa 12 bilood oo ugu dambeeyay 9 bilood January to September noo qabsoomay marka waxyaalo badan baa u qabsoomay commissionka oo ay ugu horeyso commissionka mihnadaha caafimaadka waxa uu ku guuleystay inuu habraacyadii loo galay standardska ama goalskii lagu eegayay dib aan u wada habeynay waxa kale oo noo suura gashay qorshe habeedkii 2022 oo aan imika deewaaba kan soo dhawaaday oo ku salaysnaa strategic plan-ka koryaal baan idin keenay strategic plan 22 ilaa 26 qeexaya waxa commissionku qabtay iyo halka u socdo waxa kale oo waxyaalaha noo suura gashay waxa weeyaan sida shaqada joogtada ah ee commissionka oo baaritaanka ama assessmentska goobaha caafimaadka ama goobaha waxbarashada caafimaadka waxa noo suura gashay sanadkan in 10 bilood waxa noo suura gashay inaanu 14 goobood oo bixiya adeega caafimaadka aanu full assessment u sameynay oo ay ku jiraan isbitaallo farmasiyo 10 goobood oo kamid ah waxa cadaatay inay buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay oo aanu license siinay 4na in looga baahday inay dib isugu noqdaano muddo 6 bilood aanu siinay inay soo saxaan ay soo gaarsiiyaan heerkii looga baahnaa waxa kaloo commissionka mihnadaha caafimaadku ku sameeyay baaritaan 5 goobood oo ah kuwa jaamacadaha wax lagu baro mihnadaha caafimaadka marka 5 goobood waxa hoos yimaada 5 jaamacadood laakiin waxa hoos yimaada 20 kulliyadood oo marka jaamacad asas gareynayso kulliyad walba goonaan u asas gareyn hadii jaamacadaasi medicine ko kaliya dhigto medicine ku bal asas gareey hadii dhigto medicine-ka iyo kalkaaliyaasha iyo labka mid walba goonaan loo asas gareeya ama loo baara marka 5 goobood oo caafimaadka ah kulliyadaha ama jaamacadaha lagu dhigtaan asas gareynay taasna waxa hoos yimaanay 20
kulliyadood 14 ka mid ahi way buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa waananu siinay khusuusada laysanka inay sii wataan 6 kale kulliyadood iyaga qudhatigood waxaanu siinay naftirkooda waxaanu siinay inay isa saxaan oo 6 bilood ugu dambeeya suggestionskii baanu siinay inay isku saxayeen oo soo gaarayeen heerkii looga baahnaa taa kulliyadaha waxaanu aad iyo aad ugala shaqaynaa commissionka higher educationka commissionka tacliinta sare baanu kala shaqaynaa oo iyagu markay jaamacad soo ansixiyaan ay jaamacad tahay ay license soo siiyaan jaamacad ahaan inuu anagu facultyga ama kulliyadaha caafimaadka dhigo oo keliya aan eegna anagu marka jaamacad aan saxnayn oo commissionka tacliinta sare aanay soo gudbinin ma siino maba baadhnaba conditionskay ku xidhantay ugu horeeya shuruudaha ugu horeeya lagu xidhay ka mid tahay higher educationkii ma arkay jaamacaddaas ma soo ansixiyey markaasaan anaguna qaybta caafimaadka dhigta aanu dib u eegna waxaa kale oo imika noo suurta gashay 9 bilood in 330 mihnadle caafimaad aanu license siinay oo kuwii hore ku biiray 236 ka mid ah shuruudihii oo dhan si fiican bay u buuxiyeen 2 qof waa la diiday 95 ka mid ahina weli processkii baa socda way processka marmarka qaarkood week 2 week marmarka qaarkood hadduu qofku shuruudihii oo dhan wada buuxin waayo hakaya